السلام عليكم أصحاب السود هذا مغلق جرتين مع هذه الصومالية أو ديه جرتي labadii xaq darro ku heshiiso xaqa ayay ku diraraan hadda ninkii Trump ahaa iyo Elon Musk waxaan ogeyn inay isku dhacsanaayeen labadii bilood ee u dambeysay sharcigii the big beautiful bill oo Trump uu jimcihii saxiixay dartiina isku la dhaceen maadaama dantiisa uu ka dhaxwaayay ninkii Elon Musk ahaa haddaba ninkii Trump ahaa qoraal dheer ayuu bartiisa True Social goordho uu ku soo qaray taasi oo kabaha kula dulmaray ninkii Elon Musk ahaa waxuu yiri aad ayaan uga xumahay in Elon Musk maalmihii la soo dhaafay wadadiisa uu ka leexday isla markaana sidii tareen burburay oo kale oo u burbursan yahay macnaha in uu aad u murugsan yahay xitaa uu isku dayayo inuu xisbi siyaasadeed cusub uu sameeyo isagoona weligiis aan ku guuleysanin Mareykanka wax guula aan ka gaarin waxuu sidoo kale intaasi ku daray in xisbiga Republicanku hadda uu yahay mid barwaaqaysan sharcigii the big beautiful uu u meel maray sidaas darteed waxuu yiri Mareykanku hadda uma diyaarsana xisbi saddexaad oo kale waxaan haysanaa ayuu yiri xisbiga dhinaca bidix u janjeera ee dimuqraadiga kaasi oo kalsoonidii shacabka lumiya marka waxuu markaasi kadib uu ka hadlay isaga iyo Elon Musk waxyaabaha ay isku qabteen aniga iyo Elon Musk waxuu yiri waxa uu sheegay Elon Musk in waxyaabaha ay isku qabteen ay yihiin in sharcigan the big beautiful bill lagu daro in dadka gawaarida electroniga iibsada oo Elon Musk shirkadiisa Tesla ay soo saarto in marka canshuurta ay xareynayaan ilaa iyo 7,000 oo canshuur dhaaf loo sameeyo arintaasina wuxuu yiri anigu bilowgiiba waan ka soo horjeeday Trump wuxuu ognahay ninkan ayaa soo saaray Elon Musk oo ninka ugu taajirsan adduunka lacag 300 oo milyan ku dhawaada ayuu Trump ololihiisa doorashada ugu taageeray intaas waa inta la og yahay inta aan la ogeyn ayaa ka badan marka waxa uu leeyahay anigu markii horeba Elon Musk waan u sheegay qorshaha aan damacsanahay in gawaarida electroniga dadka in lagu qasbo aan ka soo horjeedo sidaas darteed waxa uu yiri hadal kasta oo aan jeedinayo xilligii ololihiisa doorashada muddo 2 sano ah sidaasi ayaan dhahay Elon Muskina wuxuu yiri taageero buuxda ayuu ugu siiyay isagoo aan wax su'aala ka keenin xitaa waan weydiiyay oo waxaan iri Elon Musk arrintan waan kala hadlay waxana uu ugu yiri wax dhibaato ma laha marka waxaan wuxuu leeyahay ninkan wuuba ogaa arrintan sidaas darteed ayaa haddana wuxuu yiri ayadoo arrintaasi ay jirto ayaa haddana waxa la yaab ila noqotay in Elon Musk nin saaxiibkii ah uu isku dayay shirkadda NASA inaan madax uga dhigo waana run arrintaasi waa ay jirtay Elon Musk ayaa nin Trump u keenay markii uu magacaabay kadib xilligii loo gudbin lahaa sanadka inay ansixiyaan oo markii uu Trump Elon Muskna shaqada uu ka tagay ahayd uu ka laabtay Trump arrintii oo nin kale ayuu booskii ku magacaabay marka wuxuu yiri Elon Musk ninka uu keenay waxaan ogaadayba inay saaxiibo isku dhow ahaayeen ka suko waxa la yaab ila noqotay in nin dhiigiisa uu nin buluug ahaa macnaha xisbiga dimuqraadiga ayuu ka tirsanaa ayuu leeyahay waligiina xisbiga Republicanka ma uusan taageerin sida Elon Musk oo kale marka ninkii taageeray oo soo saaray wuxuu leeyahay markan kaliya aniga iyo taageero lacag siimood weligii xisbiga dimuqraadiga ayuu Elon Musk taageeri jiray ayuu leeyahay marka qoraalkaasi dheer ayuu soo qoray ninkiina waa uu diiday marka wuxuu yiri shirkadda NASA oo Mareykanka shirkad weyn ah oo dhinaca gantaalada hawada loo dirayo hawada sare sadex gacmeedadii waxyaabahaas diritaanka ay qaabilsan tahay dawladda Mareykanka ay u qaabilsan tahay marka wuxuu yiri waa shirkad weyn macnaha wuxuu yiri ninkan uma qalmin in loo magacaabo maadaama corporate business ay ku jirto Trump wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabay aniga muhiimadeyda koobaad waxa ay tahay ilaalinta shacabka Mareykanka marka labadan sida muuqata waxba ma aysan isku reeban Elon Musk ilaa hadda ma uusan ka soo jawaabin laakiin waxaan ogeyn bishii hore waxyaabihii uu soo qorayo oo Trump waxa uu ku jiraa Epstein files darteed ayaa FBI-du ay u soo bandhigi laadahay xitaa waa kii sharcigan hadii la meel mariyo xubnaha u hanjabay oo yiri doorashada soo socota ee xilliga dhexe waan idinka codeyn doonaa Trumpna dhinaca kale uga hanjabay laakiin Trump dhankiisa ayay taageereen xisbi siyaasadeed ayaan bilaabaya oo the American Party la yiraahdo waa kii hadda soo qoray oo sheegay inuu ku guda jiro sameyntiisa xisbi siyaasadeed oo cusub oo saddexaad oo midkii saddexaad ee Mareykanka Republicanka iyo Dimuqraadiyiinta noqon marka ninkii Trump ahaa saaxiibkiisii hore Elon Musk
waxba ma uusan u reebin wuxuu yidhi ninkaas hadda waa iska niyad jabsan yahay toddobaadyadii u dambeeyana sidii tareen burbure oo kale wuxuu yidhi nin aad u murugsan ayuu ahaa hadalkiisa marka qoraalkaasi dheer oo aad arkaysaan ayuu bartiisa True Social kusoo qoray waa mahadsantii saaxiib dagaalka labada nin halkan ay isla gaaraan kolley waan la socon doonaa waan idiin soo gudbin doonaa intaan mar kale kulmi doono saaxiibkiin cilmi waro idinla sida iyo nabadgelyo